باش يعني كاس يعني ماشي كذا قلت لك يعني عشان لا يجي من الحبسية أو حبس بالله من مجنون ممكن أنا في جنسية الخراسة كمان بعد ماشي فريسة ماشي تجمع كذي ماشي بعد قف كمان معي حوالي عسكرت ما كان ماشي تبتي سراسي شوية خانو حوالي ما كان الحمد لله من لا يعيش برفاه شعبية على هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا qiimaha iyo qaayaha iyo qalbiga quruxda badan ee dunida daafeeda iyo dacladeeda meel kasta ka jooga soo dhawaada janalka Lilaf Media xog kale cusub ayaan idin sidaa oo ka farxad badan tii hore Lilaf oo dib xornimadiisa u helay waliba muuqaalkan igala qayb qaadan doona haduu Ilaahay hadaa xasuusataan daawatay muuqaalkii kan ka horeeyay waxaan ku iray saacadaha soo aadan waxaan heli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku raadayay xog ama arimo ku saabsan arinta Lilaf oo insha Allah arin lagu farax noqon doonto hadii ay suurto gashay in xorriyadiisa oo helo ee arintii ay soo dhamaatana waxaan la wadaagi doonaa ama aan la wadaagi doonaa muuqaalkiisa ama maqalkiisa waad ogtihiin qof saaka barqadii gurigiisa ka baxay tan maanta iska dawareegiyo dood ku jiray ma suurto gali karto inuu muuqaalka soo muuqdo inuu shaqo kale iyo howl kale galo sidaa darteed waxaan sameyn doonaa inaan khadka telefoonka soo geliyo Lilaf aan ku wareysto haduu Ilaahay yiraahdo bal qofkii ay xaaladda qabsatay waa isaga xaaladda sidii u dhacday meesha ka bilaabatay iyo meesha ay hadda xaalad marayso iyo waxyaabaha iyo cid alaale cid ka dambayso hawshan si uu idinkaga warbixiyo oo aad idinkana wax badan uga socotaan haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waad mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa kuwa garab istaaga commentiska quruxda badan noo muujiyay waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa kuwa intana soo wacay naxal wareystay noo soo duceeyay Ilaahay khayr ha idinkaga dhigo waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada YouTube-ka iyagana YouTuberada ah ee garab istaaga noo muujiyay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ama aan raali gareynayaa saaxiibada kale ee na soo wacay ee suurtagali weysay telefoon badan oo iska soo daba dhacay awgeed inaan iyagana la hadalno waxaan leenahay naga raali ahaada waan jeclaan inaan dibkaad nala qaybsanaysaan aan idinla wadaagno oo aan anagana idinla qaybsano laakiin si way suurto weysay waa dareemi kartaa xaaladda siday tahay iyo inta qofood ay kusoo wici kartaa hal telefoon ayaad qaban kartaa kumanaan iyo boqolaal qofood kama qaban kartid marka soo dhawaada in leeyahay Lilaf ayaan qadka telefoonka soo gelin doono oo aan ku wareysan doono haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah soo la socod wanaagsan marka waxaan rajeynayaa in aad ka bogataan arinta meesha ay marayso iyo wax walba xaaladan ku saabsan Lilaf iyo rakaab seeta soo dhowniyo janalka live ugu jirta oo dadka ku daawanaya bal ugu horeen waxaad ugu warantaa xaaladaada caafimaad iyo jawigaaga iyo arintaada hadda meesha ay marayso أصحابي القارئة أبارك بعد أقولي مالي سلاح ومقشان إحنا سوقاري إنك استوحوا إسكاري بس أنا هرجع بيعارو أنا إسكح سلاح ومركا ساعة مكان باقي عمل شخص على نرى سكر مكان وكانت حقيقي مالي من الشغلة يعني سوداوي سوداوي أو تعالي هنا هذا نقول ما وفهم هذا قولي ما زال أخوف كنا كسوة marka intaas maraysa Lilaf wadada waxay isweydiinayaan ma iska imaadeen oo ma iska wateen Lilaf ma la iska watay ma iska raacay mise wax sharciya ma maqlaysaa Lilaf waan ka xumaa waxaan u maleynayaa Lilaf waxaan ku weydiinayaa marka arinta markay meeshaas marayso
ma iska raacday oo iyaga miska ka wateen mise wax sharciya ama warqad ama dacwad adikaaga dhan ay ku tuseen oo aad ku raacday maxay ku timid marka arrintaas oo in adiga qof dhan la soo dacweystay oo saldhig inta la tagay report laga soo qortay aad tahay haddana lagula macaamilo sidaas oo kale maxay ku timid marka صح ماشي انت مالك يجي ماشي بعد قفك هو مالي حوض عسكرت ما ماشي تجي سراسي شويه خانو حوض مرك الحمد لله من العيس برفير شعبية على هذا مرك ويترجي يعني سيد محابيس وكان لما نقول سيد عالي من إلى حبس بلا الوجه من الفلسطينيين أو قراصة بروفيل ماشي مرك فلسطيني كانت ماشي على الوجه أي مرك جات مرك لقى عليه قف كل الناس يترون يعني أنا واحد كنت أقول سيد صوف صاي أنا مش صوف صاي أنا مرك السوق السعودي أبي حال سوق الجبيبو إن ما تلاقي قميص صاي وحتى ما كان سوق الجبيب لكن سدينا مش بقول مالنا ولكن حد حوالي عن قف من يسمى الشيء وأصلا ما عايش شيء بس عرفت قلت على مكان سدينا دولار بارسين في العدالة مكاس على سوق المانع يعني أنت حالك رسمي ده حالك رسمي ده مكان أنا أقول لك أنا شوف بيسا ذيك Thank you. لكن إن شاء الله وحرجينا بريتنا مخالك الصيف اللي سلاح الجيران سلاح القبسان يسمى الحكومي معنا من مكحل داريا مركع انتصى مركعية وما تتخشطي عندها بغير الحين وعندها مدعدة أيضا أصحابها يقصون عن ميكو على حرام حنيف خلصت الكوارث محل مركع كذبنا في فيديو باكي مثل ما كنا حقنا إننا مش عبيد الله الشيطان هذا بدنا بعلمه أنت فيديو مسطع وكومنتيا أنت ولا تسوق قرصي حتى الحاكي حاول بس ما تهلا أنت waa rabay su-aashaas inaan ku weydiiyo dad baa waxay isla dhex marayaan in arrintan ay salka ku hayso ama ay qusayso public prankigii maalintii lasoo dhaafay aada beerta banaadir ku samaysay oo aada gabdhihii iyo wiilasha aada lahayd sawir iga qaad arrintaas iyadana maxaa ka jiro waaw لكن أردت وعمل كمان درته اسكو مصر بنا وحازم اسكو محرو اسكو مصر دعوي لكن وحال نصوص دعوي بناتاي أنا جعلت وآخر جعلت المجرى ومكة خلاص على اسكندرية لكن وحالحان اسكو مدلان لكن قيمت واسان اسكاسن مكة تيني ما يجرتي تيني ماشي قماتي سيدي يعني هو سيدي يعني ماشي اللي marka xasan sidii aadana waxa la wada baa waxaan dhamaanay sabbiya la sanad oo xaq gaarsiyo
إن شاء الله حسيت أولئك السؤالنا بس أنا كل مركز على كلامها ugu dambeyn liilifo maxaad fariin ama aad intaadan muuqaal kasoo muuqan ka hor isla caawaba oo dadkii hiilada ku muujiyey oo kuu damqaday aad u diraysaa oo aad لكن وحالي سوي ما شرف ما سوي خف ما شرفه أنت ما خف بنقول زي ما قلت لكن ما كتعرف حال حال ما كتعرف قلته ما راح أقول في الإسلام وحالي هاي صاحبني جلك وحرم أنت قمت يسوع برسي وحالي أصحابي هذا خلنا سنتين أنت بيس بابليك بانك مع وحري هذا بيك وحالي أصحابي خلنا سنتين وحوارك أتاس waxaa sii jirtoo kale dad leh haba yaraadaane dad leh way ku fiicneed because dadku caan jiray iyagan maxaa leedahay والله أنت حلها أنت خف المعارض ما جرى صح تقدر على كلامها أساس حلها ما كيجنا كل صاحبي ودرس كفتنا قلبي لما جت عليها لكن حلها هرب الشعراء إن شاء الله بين شهر أنا دولاي جالسيو gabagabada liilifo gabagabada waxaa leeyahay saaxiibada qaaliga ah insha allah beri muuqaalka xigo wixii war jiro wixii kala talaajinayo iyo sidii duulaay la gaarsiiyay warka ugu dambeeyay oo caddaay in lagu kala baxay meesha imaata laakiin hadda waxaa magaalada dhigashay ninka waa la xiran oo waa la yeela dad badan way soo caayeen hadda muskaalo badan ay yaala marka waxaa rabaa muskaalahaasda مجالس نفتكر waa mahadsantahay brother dadka ku daawanayaan iyagana runtii waa dad aad u qalbi fiican gabagabada muuqaalkan joognaa saaxiibyaal liilifo uu ahaa oo khadka telefoonka igu jiray oo aan idinkaga warsiinaya ama asna idinkaga warbixinaya sida arrinta ay ku bilaabatay meesha ay marayso iyo waxyaalihii dhacay aad iyo aad aan ugu mahadsantihiin sida wacan aad noo daawateen ama aad noo dhegaysateen iyo sida wacan aad hiilada noo muujiseen intaba waa idinkaga mahadcelinaynaa tani muuqaalka xigana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo insha allah